فرحات قاربي تهاي إن كسوق يقولوا كلن كان أما حفلة لبدا فريو برنامج في ساعة أكسلريتر سوق مقابل شرين إنه في الفنشر كوسات صار إن دميرة ذينا لقيت ترتسي إنوفيشنز كا أما هالأبور كجناسي كنت علاقة أما لحينا تكنولوجيا طبعا وحنا من هدونا إن هذا كله والله إن تهاي دون أي هبتو وأي ما مشوا يجهزوا تكنولوجيا يتكسر تكنولوجيا دا كهدانا واحد مدائن دب وجهريسو صعد كيهور مركا يتناول يدور الغاليس وحاول بعدين المالجرين لو سميه investment لو سميه يقوم يمسنوا ابن آدم هو دنيارة قفكم مركو دنيارة ده هي وقت بو هيستا حب يا أول يتمربوا لي هي وحب هاي لقى من الدنيا وإنه ابن هاي ودي الدونك رقم أنت وحكي بدري أما social revolution في كل سميه وأنا من دنيارة markaan eegto Facebook nin kale Mark Zuckerberg nin dhalinyaro weyn dunida transformation dhamaystiran buu ku sameeyay isbeddelku dunida ku sameeyay oo garan kara waa ogtiin oo dad badan waxay soo weydiiyaan Telesom iyo innovationska technology-yadeed ee dunida ku soo kordhisay ma aha waddankeena oo kaliya innovationska ay Telesom sameysay waa wax dunida laga sheego oo maxaafisha dunida iyo meelaha dunida laga hadlayo technology-yada aad loogu soo qaado وأنا جالس أتابع مرة بيل جيتس أو شاب أيوم نيويورك كهرلي مركز إنديا بتصارع بساقاتين السومالي لا تقطع يكرتون سقولي بتمام وضرنا الاعترافين وأفريقيا كويا السومالي الليلة إنديا ويك قطع يكرتان موبايل ماني يو ديفلوبمنت كايسمي يسوي شقية كم يمنن هون فرود كم يمنن عكلة واحد لا يمكن ما واحد هون بدن يوقت بدن ولا جري لنا عكلة كم يمن واحد الأجنبي نوكله dhalinyarada sameysay innovationska iyo technology-da sameeyay waa dhalinyaro waddanka ku dhalatay wali waddankan wax ku bartay aan meel kale wax ku soo baran laakiin waqti la geliyay la dhiiri geliyay la garab istaagay waxay u baahanayeen loo diyaariyay waxay keeneen in transformation ku sameeyaan anagu Telesom ahaan anagoo uga faa'iideysanayna awoodda technology-da leenahay waxaanu markasta la garab taaganahay innovate venture iyo cid kasta oo doonaysa in dhalinyaradeena loo horumariyo dhinaca teknolojiyadda iyo dhinaca aqoontaba inaanu taageerno inaanu gacan qabanno inaanu adduun ku taageerno khibradda iyo aqoonta aanu leenahay ee ay leeyihiin shaqaalaha iyaga iyo dadka nooga shaqeeya majaalka marka waanu garab taaganahay waanu kala shaqaynaynaa riyadeeduna waxa weeye annagoo la kaashanayna innovate iyo dadka kale ka shaqeeya hawlahaaba in Hargeysa noqoto Hargeysa Silicon Valley in Hargeysa noqoto marka waxaan kolley dhiiri gelinayaa dhalinyarada waliba ogahay in wax badan ku jiraan laakiin dhalinyarada waqti badan siiya way business waxa laga yaabaa markuu heer soo gaaro inuu u baahdo financially inuu helo lacag dheeraad oo ku shaqeeyo si business-ku u sii jiro taana waan ku taageernaa oo deymahana waan u samaynaa marka waxaan uga jeednaa inaan wixii noqonin hal bacaad lagu liso dhalinyarada inta waqti la geliyo ee wax ka soo baxaan dabadeedna in wixii dhiciso meel dhexe ku baxtiyo kolley way naga go'an tahay inaanu taageerno inaanu barbar taagnaano inaanu awoodayada teknolojiyadeed iyo dhaqaalaba gelino dhalinyaradeennu si ay noqdaan kuwa la tallaabsoo la tartami kara dunida iyo teknolojiyadda waxaan leeyahay Telesom markasta waxay diyaar u tahay inay gacan qabato cid kasta oo doonaysa dalkan horumarkiisa teknolojiyadeed iyo ka dhaqaalaba oo doonaysa inay wax soo kordhiso waxaanu taageeraynaa sidaasoo kale gacan qabanaynaa cid kasta oo la timaada wax ka bedeli kara bulshadeena transformation ku samayn kara inaanu garab istaagno inaanu taageerno inaanu u samayno mataqaanaa meeshii ay ku samayn lahaayeen practice-ka iyo ku samayn lahaayeen waxaan insha Allah ta'ala mustaqbalka dhow ku tala jirnaa inaanu samayno ICT lab ay dhalinyaradu isticmaalaan oo ay ku practice gareeyaan ICT innovationska iyo waxyaalaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan atlas waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad marti sharafta ka soo qayb gashay dhammaantoodba waxaan leeyahay dhammaanteen waa inay naga go'naato inaynu hore u soconno inaynu wax soo kordhinno inaynu isku dayno inaynu dunida wax ku soo kordhinno
aynaan noqon dad consumers oo wax cid kale soo kordhisay oo isticmaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdiwahaab iyo Telesom waxa weeyaan labadooduba barnaamijkan runtii haddaan kelmad kula ka soo koobo la'aantood muu shaqeeyeen iyo cid kastoo runtii kala qayb qaadatay ama gacan ka geysatay oo ugu horeyso shirkaddeena wadaniga ah ee Telesom aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. Mashruucan iminka maalgashiga ee Innovate Venture ay bixinayaan lacagta markaa kooban la siinayo dadka la yimaada hal abuurka. Runtii anagoo wasaarad ahaan markaanu kulannay aad baan u dhiirigelinay iminka shirkaddan Telesom waxyaalaha ku horumartay waxaa ka mid ah waa risk taker weyn. waxay qaataan khatar fara badan bay qaataan. khatartaas markaa waxay keentay inay horumar maalin ka dambeysay gaadhaan. haddaad doonayso inaad horumar ka gaadho businesskaaga waa inaad adna khatar qaadata. khatarta qaado markaan ku leeyahay micnaheedu maaha inaad shar iska tuurtana maaha oo business aan horumar samayn inaad lacagtaada gelisa maaha, laakiin waa inaad maskax la timaadaa, maskaxdii markaa tijaabisa. ugu dambeyntii dadka khibradda u leh businesska inaad la tashataan aad iyo aad u soo jeedinaya markaad iminka fikirkan aad maalgelinta u doonaysaan. And in our program, it's not only the Innovate Venture which is implementing and we are supporting, we are working together on these startups. There are some other initiatives that Oxfam also has in terms of working with some other local civil society actors like Shurako, providing loans at a low rate and with the least collateral. Because for youth, it is also quite difficult to mobilize collaterals and then get loans from the different banks to build on their initiatives or to build their businesses, because that's also a requirement. Then we also have different initiatives with Shurako, with some other organizations, where we are providing training for youth employability. And from our side, from Oxfam side, we will definitely continue our work. And it's not only just these kind of smaller initiatives that working and supporting youth directly. marka meelaha anagu ka duulinayaan doonayna inaan u fududeyno maanta kuwii ku guuleystay insha Allah mashruucan inaanu soo dhaweeyno siino sidii ugu habooneyd ay ku heli lahaayeen shaatiyo ganacsi ama license ganacsi kala duwan. waxaan rabnaa in the next 10 years the next Telesom, the next Somtel, the next Somcable, the next Google ina ka soo saarno wadankan, right? So anaka waxa sameeyna waxa weeyaan So what we do essentially is we provide the necessary training, mentoring, right? Your investment. Innovate Ventures. Innovate Ventures is the leading startup accelerator and incubator in the Somali regions. We've been operating since 2012 and trying to grow the nascent tech scene here in the country. And this year, we're proud to launch the Accelerator Program 2018 with our partners, Telesom, VC for Africa, Oxfam, and as part of the Work in Progress Alliance. And I'd also like to express our deep gratitude to the government for their support. This program builds on a very strong foundation where in 2017 we had close to 500 applications and dispensed $30,000 worth of investment. This year we're hoping to go even further than that and provide more investment and give the startups in Somaliland the kickstart that they need so they can grow into brands like Telesom. So we are here to support our partner, Innovate Accelerator, to launch the third cycle of their program. So this is already the third year we support this accelerator, which happens to be the first official accelerator program for tech-enabled startups in Somaliland. And we are very excited to see some good outcomes from the previous two cycles. We see some of the companies making really good progress, growing revenue, being featured in international media, and also raising more investment. So we are very happy because we feel we are succeeding in our mission to put Somaliland on the map as an investment destination and a destination where exciting innovation and exciting startups are being in the making.
So we are here to help our partner promote the call for applications for the 2018 cycle. It's a very competitive program. We get a lot more applications than we can actually accommodate. One cycle can accommodate maximum 10 to 12 startups. But another exciting piece of news that I'd like to share is that this year we will also have a way to support all the other startups which are not going to make it into the accelerator. And the best part about this is that these materials are also available in Somali language. So we really did our best to make it accessible for local youth, for local aspiring entrepreneurs. So we hope that local entrepreneurs will make good use of it. We believe that entrepreneurs are a driver of economic growth and development. Where many people would see a glass half empty, they would see a world full of challenges or problems. Entrepreneurs, growing a venture successfully is a very difficult thing to do. There are many reasons why it doesn't work. But when we are able to partner together with wonderful organizations and individuals that are dedicated to this space, we are not only able to identify the most promising companies that are coming up in this country, but we are able to put them on the map globally. We are able to connect them internationally. And for that, we're very thankful to be here. We're looking forward to meeting many of the entrepreneurs that will be part of the 2018 program. tusaalo kale iminka Innovate Ventures waxaan ugu xidhay Telesom ugu xidhay oo ah organization kaliya marka laga imaado Innovate hadday noqoto mid public hadday noqoto mid private ah inaga caawisay hadday noqoto investment hadday noqoto la talin hadday noqoto consulting hadday noqoto macal waqtiina siiyaan ayna la hadlaan marka relationshipka lagu xidhayo baananka institutionka macal wargeysada lagu xidhayo iminka tusaalo kale website-ka aad aragtaan BBC waxaan ugu xidhay Cabdiqani ayaan ugu xidhay marka iminka alxamdulillah ilaahay mahadii Innovate Ventures oo caawisay iyo Telesom Group imika waxaan nahay shirkadda e-commerce-ka ah ee ugu weyn Somaliland, Puntland iyo kilalka shanaad ee Soomaaliya waxaan doonaynaa insha Allah bishan May inaan ku soo kordhino service cusub oo loo Muraaso Global oo ku xidhi doona customer-ka Somaliland iyo kilalka shanaad iyo Soomaaliyaba ku xidhi doona products-ka ama alaabta taala caalamka oo qofku isku bartan joogo uu ka dalban karo waxa yaala Dubai waxa yaala UK waxa yaala Mareykanka ka dalban karo Telesom ahaan waxaanu ka soo qayb qaadanaynay ana ka qayb qaadan doonaa inaanu taageero oo nu ku taageerno adduun ahaan ama lacag ahaan iyo aqoon ahaan iyo waxa weeye khibrad ahaan waxaanu dheerahayba dhalinyarada ku guuleysata iyo kuwa kale aan ku guuleysan waqtiga ay ku jiraan tababarka intaba inaan ku caawino wixii khibrad iyo aqoon aan leenahay mashruuca gabagabadiisana aan ku caawino maalgelin lagu maalgelinayo markaa kuwa guuleysta ujeeddaduna waxay tahay inaan dhiirigelino dhallinyaradeedu inay noqdaan qaar la tartami kara dhallinyarada gobolka iyo kuwa dunida labadaba Telesom ahaan annagoo ka duulayna baahida ummaddeedu qabto annagoo ka duulayna dhallinyaradeeda iyo baahida ay u qabaan inay sameeyaan horumar tiknoolajiyadeed annagoo ka duulayna dhallinyaradeedu inay noqdaan qaar iyagu shaqooyin abuura ee dhallinyarada kalena shaqooyin u abuura wax naga go'an inaanu taageerno mashruucan markastana aan la garab taagnaano taageero maaliyadeed taasoo hore baanu siin jirnay sidoo kale waxaan halkan maanta ka ballan qaadaynaa dhallinyarada guuleysata ee mashaariicdeeda ku guuleysata inaan u samayn doono oo nu u fududayn doono inay si free ku isticmaalaan adeegga cloud system cloud service-kayaga oo ay si free ay ku isticmaali karaan platformyada ay la soo baxaan ay ku guuleystaan inaan si free u siino inay ku isticmaali karaan adeegga cloud service-ka dhinaca kale waxaanu yeedna sidoo kale u ballan qaadi doonaa businessyada guuleysta ee shaqeeye noqda dhaqangal ee suuqa ka qayb gala inaanu sidoo kale u profile garayn doono nu siin doono taageero xagga maaliyadda ah oo bangiyada ay siin doonaan credit line ama ay dayn
u provide garayn doonaan si ay ugu kabaan businesskooda sidoo kale waxaanu ku caawin doonaa dhalinyarada guulaysata inaan khibradayda aqoonada teknolojiyadeed iyo ta ganacsiba ku taageero oo aanu dadkayga aqoonta u leh khibradaha u leh ay siiyaan hogaamin iyo mataqaanaa tilmaamis iyo inay iska rabtaagaan inay tusaale iyo mataqaanaa hoga tusaaleynba u sameeyaan haddii lahaydba intaba waanu ballan qaadaynaa